haddana walaalayaal ama xililka raadinaya ama madaxdaba inoo ahba qaarna inaba maamulaanba number 1 waxa musabixi ninka lidaan musabixi wuxuu xasuuq naf iyo maal bale ka geystay meesha la yiraahdo Boorime waliba wuxuu ahaa ninka qure ee qirtayba isagu mar la wareystay yiri war waanu kala shakinay oo waanu kala shaki baa noo geeyay runtii laakiin gobonnimada ay sameeyeen reer Boorime way soo dhaweeyeen maantana waxa uu tartamayaaba inuu noqdo inuu gobolada waqooyi uu hogaamiyo isagu madaxweyne ka noqdaaba maantana uu tartamaya waa ninka la yiraahdo musabixi وقعن كديغلا ولا runta fiican walaalayaal laga beedbeedi maayo naf iyo maal ba uu xasuuqay meesha la yiraahdo Boorime numberka labaad maanta walaalayaal qofkii qabyaaladii waxa ku intaay anagu isma naqaano iyagu ku biiraya wuxuu ku biiraya gacan ku dhiiglayaasha iyo qalin ku dhiiglayaasha ku biiraya runtii number 2 waxa amnika la yiraahdo Morgan wuxuu ka geystay gobolka waqooyi galbeed Hargeysa xasuuq naf iyo maal bale sidoo kale jubada hoose reer Burco iyo reer Hargeysa waxaan leeyahay warninkan cidna uma aabayeelan haduu Burco iyo Hargeysa ka geystay dhibaatooyin jubada hoose iyo Kismaayina uu ka geystay waliba isagu waxa uu musabixi ku dhaamaaba waabu qariyaa oo waxa uu isagu raahdaa kacaankii iyo waxyaabo noocaas oo kula galgashaaba number 3 loo kala walaal qabyaaladeysto dhan iska hadho Soomaaliinta kuwaas inay dhex joogan runtii nabad helimayno abaarahaasina ku jireenaa dhibtaasina ku jireenaa inta kuwaas inay dhex joogan number 3 Muuse Suudiye laxow wuxuu ka geystay xasuuq naf iyo maal bale gobolka laahdo Banaadir Muqdisho wuxuu aanikii idaacadaha kala magacayga la maqli waayo waxaan doonayaa inay dadku intu dadka laayay masaakiinta oo madaafiic ku furay dadkii suuqa Bakaara in magacayga la maqlaan doonaya kaasuna walaal maanta wuxuu inoogu jiraa Congress-ka waxa la leeyahay Congress-ka aqalka sare Upper House-ka uu inoogu jiraayo noocaas aba maanta walaalayaal aynu tale ka sugeynaa Soomaaliyeed number 4 ninka la yiraahdo Dhagaweyne ee reer Berbera ee gobolada waqooyi looga yaqaan mujaahid ka ee la yiraahdo waa mujaahid isaguna wuxuu ka geystay mudug meesha la yiraahdo Burtinle Ceelbacaad halkaas uu isaguna ka geystay xasuuq naf iyo maal bale number 3 ninka la yiraahdo Maxamed Kaahin ee isagana mujaahidka u yaqaanaan imka reer Burco isna wuxuu ka geystay xasuuq naf iyo maal bale mudug meesha la yiraahdo Ceelbacaad iyo Burtinle isaga iyo ninka la yiraahdo Dhagaweyne meel bay ka wada geysteen horta hadaanu nahay isaaq ma superior baanu nahay oo dadka kale waxay noo geystaan waxaynu dhahnaa dib bay noo geysteen inaguna dadkeenu dibta u geysanay waxaanu dhahnaa waxba kama jiraan oo dad kalena waa inferior waa runta la isu sheegaya kuwaasuna dad bay u geysteen waliba gobolada bari runtii gobonnimada ay muujiyeen iyagoo meelaha kale Maxamed Kaahin baa xasuuqay Dhagaweynaana xasuuqay ma maqalno dadkoodana xasuuq bay u geysteen ama xukuumad ha ahaadan ileen ninka la yiraahdo Morgan buu xukuumad u shaqeynay iyaguna xukuumad bay ka tirsanaayeen nimankaasuna xasuuq bay geysteen number 5 ninka la yiraahdo Cabdi Qaybdiid ee isna maanta malaaqalka sare inoogu jira wuxuu xasuuq naf iyo maal bale ka geystay meesha la yiraahdo mudug Gaalkacyo sidoo kale meesha la yiraahdo Galguduud Ceelbuur Banaadir Muqdisho isaguna wuxuu ka geystay xasuuqiyo naf iyo maal bale sidoo kale Bare Hiiraale wuxuu ka geystay isaguna xasuuqiyo wuxuu ka geystay meesha la yiraahdo Jubada hoose Kismaayo ayuu isaguna xasuuqiyo ka geystay maantana waynu kolkolinayna waxaan leenahay war inta Soomaaliya aynu kala saarno horta shakhsiga iyo qabiilka war nimankan aan ka hadlayaa waa shakhsiyo qabiil iyo shakhsina walaalayaal waa kala laba marka shakhsi la soo ilaaho mu adeerkay ahaado mu awowgay ahaado waa soo wada kuwa iyaguna qalin ku dhiiglayaasha wallahi inaan maanta walaalayaal inta hadayna Soomaaliya runta isu sheegin waxba inoo socon maayaan kuwaasaan inoo hortaagano xukuumad kasta oo timaada iyaga hortaagan ninka la yiraahdo Yusuf Indhacde isna wuxuu xasuuq baan ka geystay meesha la yiraahdo Jowhar Baraawe Banaadir Muqdisho ayuu isaguna ka geystay ninka la yiraahdo Allahu musta'aan
axmed cumar jees isaguna wuxuu ka geystay meesha la yidhaahdo jubbada hoose. haddaba walaalayaal raggaa maanta halkaa ku tirinayo o dhani qabiilada soomaalida ee ku wada dabaga badan ama muuse bixiyo waa taa maanta waxyaabaha runtii shalayto aan aad iyo aad uga murugooday ee aan waxaan brograamkan igu dhaliyey waxa ka mid a jubbada shabeellada hoose iyo marka intaaba wuxuu ka geystay ninka la yidhaahdo indhacadde xasuuq ba'an oo naf iyo maalba leh. war walaalayaal miyaanay nasiib darro ahayn marka iminka shalayto muuse bixi oo gacanku dhiglaa oo ninkii boorame xasuuqa ka geystay weliba ku faanayey gobollada waqooyi loo sacabatumayo ee uu madax kastee soomaaliyeedna mustaqbalkeenna ku ciyaarayo uu halkaa uu ka soo aflagaadeynayo isagoo gacanku dhiglaayo raggii weliba 30 sanayna soo hortaagnaa burcan arkayo loo sacabatumayo weliba mujaahid lagu sheegay. horta goormayn mujaahid soomaaliyeed uu mujaahid noqday oo dad muslim oo soomaaliyeed laayay ma asxaabtii baan nagu naqaanaa inay mujaahidiin yihiin. war dhammaantood waa dhagarqabayaal waa dhiig yacabo isku wada darka koonfur jooga muuse suudi yalaxa waa dhiig yacab muuse bixi waa dhiig yacab maxamed kaahin waa dhiig yacab oo isna dad buu laayay dhaga weyne waa dhiig yacab wax mujaahid la yidhaahdaa walaalayaal oo mujaahid soomaaliyeed maantana waxay noo wada fadhiyaan xagga sare soomaaliya walaa nasiib darradeena ku dhacday mujrimiintiibaa xagga sare soo maray oo dalkiiba inagu haystaba. maanta hargeysa waxaan arkayay nin yaroo la yidhaahdo wariyaayoo la yidhaahdo muxuu ahaa cumar serbiya bal ilaah baan idinku dhaarsho waxa lagu xidhayay muqdishoaad soo booqotay waa wariye wuu madax bannaaye wariyaashu xuduud ma laha border ma laha muqdishuu soo booqday baa maanta lagu xidhayey oo waxaan ku idhi oo xorriyaddiisii ku waayey isagiiyo xaaskiisiiyo weliba uu xaas ka soo guursaday meesha muqdisho laad kalsooni wax la yidhaahdana shaqaba kuma lahaba. soomaalina walaalayaal inta kuwaas inu horboodayaan horta bulshada soomaaliyeed waxaan leeyahay war qof kastooba fikir 30 sano baynu bilaa dawlad ku jirnay. su-aal baan idin weydiinayaa qabiilka soomaaliyeed ee nimankaa maanta aan ka hadlaya qalinku dhiglayaasha iyo gacanku dhiglayaasha markay lacagta soo qaataan ay wax ka siiyaan ee ay guryo ugu dhisaan ama ay wax ugu qabtaan waa qabiilkee. qabiilka soomaaliyeed maanta odhanaya nimankaasaa wax noo qabta qabiilkeegana hadday doontaa noqotee yaa odhanaya maanta muuse bixi baa lacag siiya war waa laydinku guurayaa maalinta ay meel gaadhaanna nimankan waa gacanku dhiglayaalo cidna uma tudhaan dhammaantood. waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed war xukuumadihiinna ilaashada oo xukuumadihiinna maanta raggaa maxay ahaatay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo khayre runtii kuwaasaa la dagaalamaya kii shalayto ugu dambeeyey. waxaan u daadegayaa haddaba walaalayaal qolada la yidhaahdo qalinku dhiiglayaasha waxaa number 1 u ah xasan sheekh maxamuud madaxweynihii soomaaliya madaxweyne farmaajo ka horreeyey wuxuu ahaa ninkii bad iyo berriba gatay buu ahaa ee ummadda soomaaliyeed hantideedii baabiyey buu ahaa ee wuxuun iibin jirayba. waxa number 2 ah siilaanyo ninka la yidhaahda isaguna maamulka hargeysa madaxweynaha ka waa ninka bad iyo berri war meeday hantidii guud ee hargeysa iyo burco iyo berbera bal meel ku sheega intuu wuxuu ku eedeyn jiray madaxweynihii ka horreeyay daahiryaale wuxuu odhan jiray hantidii ummaduu boobay hantidii ummaduu dhacay wuxuu gaadhsiiyey heer uu yidhaahdo shiidaa lama qodaye qashin baa lagu qubayaa. maantana walaalayaal waxaynu ognahay waa runtu mafantaa in wixii macdan yaallay waqooyi oo dhan uu dhameeyey oo la gurtay buurta boorima ku taallee simad iminkana maray caynabo u diraan maray ood weyne u diraan marba meel bay geeyaanoo kalluumaysatadiina isaga iyo faamiligiisa qoyskiisa baddii berbere waxay geliyeen ilaa jaraafkii hoose baa la gurtay shirkaday waxaasoo dhanna dhiilka waxa wada galay walaalayaal ma kala lahaa koonfur iyo waqooyi iyo waxaa ma kala lahaa walaalayaal waa maafiyo waa group waxa weeye team isku mid ah kuwii xaggaa u joogay ee uu ka mid ahaa cumar cabdirashiid cali sharmaarkii shalaytii isagana la wareysanayay. bal wuxuu ka hadlayay ilaahay baan ku dhaarshay shalayto wuxuu lahaa xukuumaddanu maanta wuxuu ku eedeynayay waxay ahayd inay qaadato gunnimo dhereg gunnimo leh 2 jeer buu ra'iisul wasaare noqday muxuu Soomaaliya u qabtay wayna ogeeno Iran buu xiriirka u jiran isagii xukuumaddiisii maxay ku bedesheen waliba markaas Sacuudiga adhiga inaga joojiyay
miyaa cunaqabatayntii adhiga ee sacuudiga miyaa laga qaaday waxay noogu bedeleen hablaheennii iyo haweenkeennii iyo xurmadeennii inay sacuudiga u dhoofiyaan oo sacuudiga ay lacag kaga beddeshaan sidoo kale meesha la yidhaahdo dalka la yidhaahdo sweden iyo sacuudigu xilligay isku dhaceen bay sweden xidhiidhka u jareen sacuudigina muddo kadib baabay waa ku heshiiyeyba sweden bal muxuu faa'iiday wajiga waxbay kala kulmeen waliba sweden oo soomaalida wax badan u qabatay muxuu ka faa'iiday isaguna walaal waa number 2 waa qalin ku dhiiglayaasha iyaguna ku boobay ummadda Soomaaliyeed hantideedii qalinka ku boobay sidoo kale niiro gaabnaayo loo oran jiray maxay tahay xirsi gaab isaguna wuxuu ahaa ciidanka iminkana waa kuwa dibadda ka soo qeyleeyada waxbaa la boobaya waxbaa la dhacaya isagii tiimkiisu waxay ragii qalinka Soomaalida ku boobay baahan Sheekh Shariif laba jeer buu isna wax boobay xilligii maxkamadii iyo markii kale xukuumadda labada jeer baa hantida ummadda Soomaaliyeed qalinku ku boobay Shariif Sakiin ninka la yiraahdo isna baydhabo madaxweynaha ka waa qalinku dhiigle isna waa noocii dhilalka ugu waaweyn ba soo galay buu ahaa ummadda hantida dhacay ninkii la oran jiray Faarax Toobas dilaalkii weynaayo Soomaaliyu hantideedii isna lumiyay ee kuwa waqooyiga macalu soo ansixinayay buu ahaa heshiisyada ay ummadda hantideeda ku baabiinayeen ninka la yiraahdo Cabdiwali Gaas oo isaguna runtii inkastoo Puntland ay kaga fiican tahay ama gobolada bari hantidii guud ee ummadda ka dhaxaysay ilaa hadda sida wararku nagu soo gaarayaan may iibin oo may baabin laakiin se dekedda iyaguna boosaaso runtii muwaadin Soomaaliyeed baan nahay ummadda Soomaaliyeed kamay qancin dekedda boosaaso halkay ku dambeysay iyo heshiiska cid ay la galeen iyo meesha iyaguna heshiiska dhigeen kaasuna waxa weeyaan qalin ku dhiglayaasha ninka la yiraahdo Baasha Morgan ee isaguna cusub ee hadda soo baxay odayga Axmed Silaaye inta ka qabay isaguna waxa weeyaan corruptus number 1 musuqmaasuqa adduunka isaguna ninka gabiga soo tafaxaytay macaal buurihii imika ku yaalay berbere aageeda Kuwaitka iyo gadarinta keenay ee isaguna hantidii ummadda maanta ugu dambaysayna ay ku damaashaadayaan meesha la yiraahdo Dubai intay soo wada raaceen gabigoodaba kooxdii maafiyada ahayd ilaa madaxweyne macaal Silaaye hore u sii kaxaysteenba ilaa isaguba qaar baa koranaya afka ka doodayga odaygu waxa mooga war mas'uuliyadda koobaad isaga ilaahay kala xisaabtamaya isaga ilaahay dadkan mujtamaciisa weydiinaya isaga badda u fasaxay inay kaluumaysatadu gasho ninka la yiraahdo isna Saleebaan Gaal waa qalin ku dhiiglay isaguna wuxuu ahaa ninkii markii la ansixinayay dekedda berbera isagana u fudeydiyay buu ahaa golaha dhexdiisa kala ahaa xildhibaankii weynaayeenu arkaynay warbax baan ku iri ka bax gola bal xagu isaga yaa soo doortay markuu xildhibaan Xaamud lahaa warbax u tuqantuqinay isagu bedel buu ku yimi qof baa bedelay nin la soo doortayna sidaas uu galay isaguna waa qalin ku dhiigle ku daray isaguna qalin ku dhiiglayaasha Saleebaan Gaal ninka la yiraahdo maha salaad ninka la yiraahdo xildhibaanka isagana ku dara leeyahay isaguna xildhibaanka ka ah xukuumadda nimika xildhibaanka dayno ah Soomaaliya ninka la yiraahdo Cabdikariin ee gola ka isna madaxweynaha sheegta maamulkan la yiraahdo galmudug meel la yiraahdo talow isagana ku dara waa la mid Faysal Cali Waraabe iyo Cirro labadaasna ku daro iyaguna waxay qaataan laaluush oo ninka la yiraahdo Faysal oo isagu marka horeba laaluush isaga taaganba iyo ninkan Cirro isna yiraahdo mucaarid baan oo sidan baan aho muxuu qabtay baarlamaanku joogo markii heshiiska runtii Soomaali hadaynu nahay weyna wada gumiyay Soomaali hamoodin inaan reer waqooyi ama reer Burcay iyo reer Hargeysa warwa heshiiska amxaaray nagu soo hagay ee maanta dekedii berbera amxaara 19% ay nagula yeelatay meena dhulkii Soomaalida walaalayaal ahayn waxa soo dhan walaalayaal waxa inoogu wacan Xasan Sheekh Maxamuud Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ninkii adarkiisa shalay tasduu hadlayay Saleebaan Gaal Silaaye ninka la yiraahdo waxa saa walaalayaal ina gumeeyay oo Soomaali in maanta dekedeennii la yeesho iyaga walaalayaal u sababaha oo hantidii ummadda Soomaaliyeed waxay inoo qabtaan 30 sanadaayo waxay naga boobaan
iyagaa walaalayaal muuse biixi waa number 1 isagu walaal kuma waa kanoo bal maanta Donald Trump baan campaign-ka uu ku jiro gali karin ya lacagta uu khasaareynayo ya lacagta soo siiyay bal lacagta walaalayaal xaguu ka keenay iga raali hada walaal in yar waan islaamaya baa ka sashadaya bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay war Soomaaliyeed toosa oo qabyaalad intaad ku mashquulsanaydeen iyo reer hebel wallahi dalkeeniiba nimankaas u tashaday oo iibiyay oo inaan maanta horta rajada ma xuma rajadu oo waxa baan leeyahayba war hadaynu Soomaalinahay waabaynu nasiib badanahayba wadan 30 sanadood burbursanaa oo badii la qaatay oo cirkii la qaatay hawadii la qaatay ayaa maanta ma sha Allah wuxuu soo booday 19 degree ayuu hawada u soo booday runtii waan ku faraxsanay maanta in hawadii Soomaaliya Muqdisho laga maamulo oo neelo soo celiyay iyo dawladeeni oo maanta runtii dawladihii caalamiga ah ay ixtiraamayaan oo newspaperadii caalamiga ah ay ku soo baxayaan madaxweynaha Afrikaan oo 80 milyan diiday bal ninka shalayto isagoo ra'iisul wasaare laba jeer soo noqday ku boorinayay maxay u qaadan weeyday lacagta ilaahay baan ku dharshay ka aqligiisu halku jooga maxuu kaga duwan yahay muxuu qaban waay meenu maafiyada war maafiya wadakeeni walaalayaal intii bilaa dawladda ahayn macal hawada in la qaato iyagu damba ugu jirtay niman doonaya inay dawlad Soomaaliyeed dhalatana haba ka yaabina mustaqbalkiina walaal ku ciyaarayaan oo keenay ku ciyaarayaan oo ka mustaqbalka dambe ku ciyaarayaan bukaan socodka walaalayaal iyaga ku dara bukaan socodka la hadlina bukaan socodku waa iyagay kamidino waxa mooga walaalayaal oo dadka bilaa damiirkoodu dhintay ee koodhanaya dawladba inay dhalato war waynu samaysan karnaa dawlad oo adduunyada la jaan qaadi karnaa dadka ay maanta in marti galiyeen inaguna hadii wadankeena hogaamiyaal fiican oo daacad oo sida madaxweynaha maanta oo kale iyo ra'iisul wasaare khayr oo kale hagardaamada laga daayo oo ay hore u socdaan wallahi horumar baynu sameynaa adduunyadeena la jaan qaadayna wax baynu qabsan karnaa laakiin se inta aynu kooxda maafiyada daba taaganahay wallahi baynaan horumar gaadhin maxay u qabteen waa kuwa soo dhalinyaradii dhamaantood tahriib bay ku wada jiraan oo qurbahay wada joogaan oo kuwa meelaha dawarsanaya wada yaaban ku Hargeysa iyo Burco u dhashay ee laha maamulkan kooxdan maafiyada ay imkana Dubai tamashlaa isaga maqanba bal maxay idin qabteen bal Soomaaliga Hargeysa iyo Burco ka yimiyay oranaya waxa dadka u qabteen bal halka ay ugu soo hadlo waxa yiraahdo waxa ummadda u qabteen dawlad kasta oo Soomaaliyeed oo dhalatana iyaga hortaagan oo dawladnimada inoo diidan mana ogola muxuu yiri gaariye nin daweyle leeyahay dambi uu bad leeyahay isagay u daranto in la daaro ma ogola war nimankan inay saasay ugu badisaaba inay dawlad Soomaaliyeed dhalato in midnimo laga wada hadlo in la heshiiyo waa xarig baaba yaala dadkiina boqolkiiba boqol intii wanaagsanay horta duligaas hoos kale intii kalena waa kuwa dibadda ku qurbaha ku dacal basarka ee baabaaya waxa laala waxay ogoliyeen walaalayaal ma ogola bal waxa la yaabaya walaalayaal qaar qurbahan jooga oo aan kama heli karaan caafimaad yar oo kama heli karaan iyo nolol kama heli karaan Hargeysa iyo Burco soo xoranaya Burco nabado Soomaaliland baas war Soomaaliya mid noqoto dawlad noqoto baad wax ku noqonaysaayo aad horumar ku gaadhaysa laakiin Burco maxaad joogi weeydi waxaan xasuustaa runtii meesha la yiraahdo Addis Ababa ayaa 2009 meelahaas ay ahayd hospital weyn oo Addis Ababa ku yaala waxaan u geeyay dhakhtar maamaday dhashay hooyadaba waxaan u geeyay hospital waxaan geeyay ninkii garanaya hospitalka la yiraahdo Koreaniska ee Addis Ababa ku yaala xaafada adigu xaafada imka magaceedu waa Hayaaraat meeheed ma garanayo magaceedu imka waan ilaaway hospitalkaasu waa wada classes oo wada quraarado kadibna intii aan weytka fadhinayba ayaa hooyo waxaan ku yiri hotelkani runtii waxaan leeyahay hospitalkani ma sha Allah quruxdiisa balka warano soo waxay ugu jawaabtay hospital Digfaar maamadu hooyo way soo aragtay Muqdisho dadkii Muqdisho joog jiray dawaagii bariisamaadka ee Soomaaliya masa waxay tiri xaafada garjibu ku yaala ha walaal maasanta dadka walaal garanaya waa kuwaas masa waxay tiri hospitalkeeni Digfaar ayaa ka qurux badnaa masaan ku hooyo hadda kuwana xabashadu may dhisanay Koreaniska u dhisay masa waxay ku tiri wallahi keeni Digfaar baa ka qurux badnaa waa xaqiiq bal walaalayaal halkaas ay Soomaaliya mareysay
down bay noo soo celiyeen maanta Addis Ababa qofkii raax xanuunsada la geenaya Ethiopia maxaa u sababay inuu Koreaniskaas hospital u dhiso waa dawladnimada investors international investors kiba u imanaya investors baa lagu sameeynaya horumar bay sameeynayaan war kuina jaahiliinta ma la hadlaya dadka iyagu wax garanaya wax fahansan iyaga walaalayaal waad mahadsantiin muwaadiniinta Soomaaliyeed ee noolaada laakiin kuwa illiterate-ka ee qabyaaladu ka buuxdo ee bukaan socodka baan sheegaya ayaan wuxuu sheegaya war markay dawladnimo idin timaado xitaa dawladda oo qura waxba ma dhisto waxa wax ku dhisaya oo ku aaminaya dawladaha adduunka waxa lagu sameeynaya wax la yiraahdo investment baa lagu sameeynaya wadooyinka lagu dhisaya dhaqtarada lagu dhisaya shaqo abuur baa lagu sameeynaya jaahilow inta qabyaalad iyo qabiil la soo taagantay reer maada madaxweynaha maxaa ka galay 12 milyan beeno nin baa madaxweynaha ku fadhiisanayay dee dhamaanteen ba wada madaxweynayaal ma noqonayno laakiin marka odayaro jaahil halkan ku fadhiistay ku yiraahdo isaaq baan noo bari baa waxaan laayay koonfur baan laayay bal burcaya hargeysa inaga waliba kuweenan waqooyiga ee qaybteena qabyaalada lagu qufulay war qalbigeenu ha shaqeeyo damiirkeenu ha shaqeeyo dadka meenu ka sareynaa horta dadka meenu ka qaalisana boormeenu xasuuq ka geysan buu hodan maalin kasta ka geysanana laas caanood beenu khasab ku haysana reer Soomaaliya sanaag baan ogolayn reer Boormaan ogolayn ma isaaqo qura noqonayna la go'aab oranaya xukuumad baan dhulka waani la degay markaan ummadda wuxuu ogolaano ayayna naguna wax noqonayna waxay ku warwareejiyaan oo yiraahdaan 4.5 ba xaga ka jira waa ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo gudoomiyaha aqalka sare ma aanay saaqayn Faisal Al-Waraabi iyo Ciraan aad leedahay xukuumadda ee qaranka ka dhigay sidii Muuse Biximaan Maadarahan oo waxbay saaqayn miyaanu Saleebaan Gaali saaqayn miyaanu Siilaayay saaqayn miyaanu Cirray saaqayn ma adigoo reeraba doonaysaa taado qaran baan noqonaya ama saad qarannimadiina diidanta war open your minds maskaxdiina fura oo qalbiyadiina fura oo bilaadanka ku soo biira intiina xun baan sheegaya isaaqu dad nasabo wanaagsan bay leeyihiin laakiin runtii waxa xagga sare soo maray oo miidhiyihii soo galay dad aad iyo aad u buka oo liita qoliyaha Muqdisho waxaan leeyahay war xukuumadda taageera qoliyiina Muuse Suudiye la xawiye halyeega oo haystay Muuse Suudi Sooki hogaamiye kooxeedka ahaa ummadda Bakaara ku leeyay muxuu horumar u keeni waayay Soomaaliya hadii runtii isu sheegayno wax allaala wax inoo kordhayay horumar aynu sameeynaa wallahi baanu jirin inta criminalska iyo corruptskaas inagu dhex noolyihiin ha ka yaabina inaynu horumar aynu sameeyno war waxa soo dhan waxay noogu imanayaan dawladnimo maanta Turkigu wuxuu inoo diyaarinayaa ciidamadii cirka ay Turkigu inoo diyaarinayaan ومالين دو waxaad arki doontaan iyadoo ciidamadii cirka ee Soomaaliya hawadeena waa taamaantin lagu soo wareejiyay waa ma sha Allah waa horumar dad baaba horumar kaba kana hayaba oo koornaya Muqdisho war Soomaaliya hadii Muqdisho ay horumar samayso Soomaaliya oo dhan horumarkaas uu gaadhay oo horumarkaas way dhaqaaqayna walaalayaal horumar baynu sameynaa sidoo kale maalin dhow waxa dhici doonta cunaqabatayntii hubkana waana laga qaadaya oo dawladda Soomaaliyeed waa laga qaadaya cunaqabatayntii hubka kadibna waxay noqonaysaa dawlad dalkeeda difaacata good news kalena walaalayaal waan idin hayaayo ama xaaradu intii inaga ay nagu mashquulsanayd ee ay Soomaali ileen qabyaladan walaalayaal iyaga u shaqeeyaan maamul goboleedadu waliba am xaaradu inay waxayna fahantay inaynu maxay tahay qabiilku inagu weyn yahay masay kuwan qabiil iyagii baa imika walaalayaal maalin dhow fulkaana ku soo socda iyo dhul gariir way dadka Soomaalidu walaalayaal Ilaahay bayna badbaadiyay horta Ilaahay ugu mahad noqdo ma sha Allah indhaano wadakeena sodonka sano burbursanay in laga qaadi kari waayay am xaaradii maanta iyaga u kala fadhiya Tigray am xaaro Oromo waliba am xaaradii oo doonaysa inay halkii hore ku celiso ha isku jabaan walaalayaal bulshadeena Soomaaliyeed ee ku dhex nool gobolka Soomaali galbeedna hal loo duceeyo hal taageero waa nimanka ku dhac Soomaalinimada ku dhimanaya intaynu nagu qabeel ku jeednay Ilaahay iyagana walaalayaal ha isku jabiyo inagana walaalayaal Ilaahay dawladeena haynoo horumariyo war Soomaaliyeed rajadu way fiican tahay walaalayaal kuwa qalbiga xun ee qalbigu walaala ka dhintayna Soomaali hadaynu nahay runtii dawladii qura inaga may dhiman dadka qulubtoodii baa dhimatay walaalayaal waxaad arkaysaa walaal qof dulli ku nool oo qoxoontiyo qurbaha jooga ama ka maanta leeyahay South Sudan buu dabaaldegay maalin dhaweedna wuxuu igula murmayay 1st of July
bal ma nasiib darro ku xun baa jirta walaalayaal waa Soomaali hooyadii waa Soomaali buu ku dhashay waxaan isku haysanay igula murmayay maxaad u xusaysaa maalintii qarannimada Soomaaliya midow cawaana oo qeydinka cuna iyo dadka nool cunana wuxuu maanta walaalayaal u dabaaldegayay maalintoodii oo maanta ku beegnay waa South Sudan kuwaas oo kala walaalayaal waxbay ka sheegayaan oo ma Soomaali baa mise waa Amxaar bal waa nooc ma Ilaahay baan idinku dhaarshay noocaasna waynu ka adkaanaynaa inta wanaagsan ee Soomaalinimada ee xalaasha ee gobonimada gobtaaba ka fara badan walaalayaal nooca walaalayaal ha u joojinina iyo kuwa kale walaal qaxoontigan ku silacayo baabaayo kaamam ku jira ama dee waa iska rafaad walaalayaal ma kolbeen noqonaynaa ummadahan ay la mid noqonaynaa Soomaali baynu nahay oo iyaguna kabana hayaba walaalayaal horumarka Soomaali oo qabiil kula soo galaya horta hadda dartaan walaalayaal qof qabiil ku gabada waa bila kalsooni waa bila raganimo waxa weeyaan waa damiir xumo qof reerkoodii ku meeraalaysanaya waa kuwa maanta isbarbar yaacaye Hargeysa iyo Burco barbar yaacaye dee reerkooda wal horeba suldaan hore way lahaayeen ma suldaan ka dhigtaanba ilaan madax ma aha oo madaxtinimo haday madaxtinimo doonayeen waxay ku doodayaan koornaya Soomaaliya war Soomaali baa tiin nalooma ogola inaanu madaxweyne noqono iyo ra'iisul wasaare noqono reer waqooyi oo shalay tan markuu ahaa Cali Khaliif kale ra'iisul wasaaraha ma reer waqooyi ahayn hadduu maanta nin reer waqooyi uu tartamo yaa ka hor istaagi lahaa hankaa hadduu la iman haddaanay hankaaba la imanayn oo inta halkaas soo fadhiistaan dhallinyaradii iyo ummaddiina cuqdad iyo xanuun ku abuurayaan maxay soo kordhinayaan maxay dadku waa kuwa reer waqooyi baa ugu badan wax xalaalo waxa imika soo taariibay waliba Burco iyo Hargeysa ee badihii Masar ku daadanaya ee badaha Liibiya ku daadanaya ee Yemen lagu laynayo ee shaqalaanta wallahi Hargeysa walaalayaal waxaad arkaysaa nin 40 jir oo aan reer lahayn oo xaas lahayn oo aan shaqo tagin oo markuu gurigii hooyadii ka soo tooso subaxnimadii intuu meelaha istaago haddana gelinka dambe gurigii hooyadii uu qada tagay oo ku noqonaya waa 40 jir wallahi Hargeysa laga helay kaasay wuxuu qaban lahaayeen haddana wuxuu ku qanacsan yahay ilaa mentally damage baa ku dhacay oo maskaxdii horta walaalayaal bilaadanka waxa ugu daran qofka marka maskaxda laga gumaysto gumaysiga guud waxba kuma yeelo ee dalka oo kale hadii maanta dalka la gumaysanayo waxba kuma yeelo laakiin marka maskaxda laga gumaysto mid ka xun iyo dhibaato nasiib darro ka xun ma jirto walaal dadka maskaxdii ayaa laga gumaystay ma garanayo war ninkan 30 sano ku soo hortaagnaa 30 ka sano isaga guriga dhisanayay waa koono Dubai iyo bay ku raaxaysanayaan saacad timeka laga bilaabo 40 iyagoo de waxaan de maasha wasiirada iska dhigaya qurbahan ay guriga ka dhisteen garan maayo xuquuqdaad meedag kii Hargeysa joogayna waxaan saaniyo maqaadkan Itoobiya talow dadkan wax loo soo raaciyay kuwaan kale qurbaha jooga ee qaxoontiga calanka Soomaaliyeed ku dhiiban ee Soomaalinimada ku dhiiban ay iska noolaadaan walaalayaal 24 saac markuu Facebook ku jiray social media Ibrahim wadaniga reer Hargeysa aad iyo aad baan ku salaamayaa Allah aqliga ku barakeeyo bodriga caashaqa noolaada dhamaantiinba walaalayaal markuu adiga kula hadlayo media ka hadlayo Soomaalinimadii buu diidaya maskax asalkiisii buu diidaya bal adduunyada walaal xagee lagu arkay qof asalkiisii diida markuu media ka baxana Soomaali buu noqonayaa gaalka markuu gacanta hoos harsanayna wuxuu oranayaa marka Francisco dhaadaan kelbey Francisco kelbey waxa weeyaan way from Somali buu oranayaa moogto la soo boodaya Ingiriiska markuu tagaa Mareykanka where you from I'm from Somalia Arabta markuu joogo Liibiya meelaha wareegaya ee uu taariikhda ku jira min weyn anta ana Soomaal buu oranay bal markuu anaga iyo Soomaalida naarkay muxuu Soomaalinimada u diiday walaalayaal dadnimadiisa iyo meeshu wax ku ahaa iyo raganimadiisa walaalayaal meeday qofka damiirkiisa maxaa helay dadnimadii maxaa helay rag iyo dumarba walaalayaal maxaa helay ka dawladnimada diiday walaalayaal maanta Muqdisho oo qarax dhibaato mashaakilku ka dhacay ka soo jeeda ee eriyada Muqdisho ee dawladnimada diidaya damiirkiisa maxaa helay war madaxweyne farmaajo waa xukuumaduna walaal dalka iyo xukuumadda hala kala saaro xukuumaddu way timaadaa waana tagtaa laakiin dalku intuu yimaado tagi maayo
xukuumadihii kala dambeeyay ilaa tii maxamed siyaad barre ilaahay ha u naxariiste maxamed siyaad barre iyo cali samatar baa ugu sarreeyay soo maaha iyo ismaaciil cali abukar ismaaciil cali abukar baaba noolba bal inay reer waqooyigeegu waalayin besba kacaanku ka mid ahaa weliba isaaqo inay dee waalayin kaaba maxaa bal wax loo dhan waay miya wadankii uu qaatay siyaad barre soo keligii muu dhimano ilaahay la xisaabtami maayo wadankeenii soomaaliya ma taagna war ninka maalin bay yimaada soomaaliyey wadanka inaga qaadan maayo dalka inagaa leh dalkeena walaal balaayihi cadow kale inaga qaadanaya haddaynu maalinba ninka yimaada aynu dabada qabsano waa xukuumad waqtigoodu markuu dhamaado khayra iyo farmaajo way tageen way dadaalayaan moraaliga walaal ay moralka u dhisno waayo madaxda haddaan la barbar istaagin hogaamiye kastoo dunida guulaystay haddaanu shacabkiisu taageerin horumar ma sameeyo haddii laakiin shacab innaga walaalayaal haddaba shacabka soomaaliyeed runtii shacabka soomaaliyeed way daalan oo waa dad fiican laakiin walaalayaal labada kooxood ee maanta halkaa ku xusay ee qaarna gacan ku dhiiglayaasha yihiin qaarna qalin ku dhiiglayaasha yihiin baa walaalayaal dib inoo dhigay ee maantana qaar madaxtinimada u tartamayaan qaarna koongareeska inoogu jiraan walaalayaal ee kow muuse bixi ka yahay ee muuse suudiya yalaxow laba ka yahay ee moorgan saddex ka yahay ee cabdi qaydid afar ka yahay ee ninka la yidhaahdo yuusuf indhacadde afar ka yahay ee uu ku jiro ninka la yidhaahdo barre hiiraale kooxda walaalayaal waxay naga boobtayna xasan shiikoo walaal ayaanu wax weydiinaynaa iyo axmed silaanye iyo xirsi balcata u keena xirsi oo iyaguna wadanka boobay samsam cabdi aadan ku dar dumarka laftigooda qayb walaalay musuqmaasuq iyo corruptionka ka qayb qaataan weliba ku dar iyadana tii wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya keeda foosiye xaaji aadan mi ahayd ku dar iyadana musuqmaasuqa number 1 bay ahayd walaalayaal cumar cabdirashiid cali sharmaarka musuqmaasuqa isaguna 1 buuha hal loo duceeyo walaalayaal xukuumadda iyo maanta dawladda aynu haysano Soomaaliyana walaalayaal rajadu way fiican tahay amxaarna way dumaysaa maanta dawlad ummadda ku dhex jirta oo wanaagsan baylan dumarka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay waa dumarka Soomaaliyeedo lacagtanaad siisaan nimankan maamul gobol idinka laftigiinu qayb baad ka qaataan burburka Soomaaliya oo hagbadahan aad ku jirtaan waxaad siisaan qolyahan maamul goboleedada ee hadhow anaga isku kaayo dhufanaya ee Puntland Somaliland Soomaalida isla dhacaya كداي وأليست هذا العقد بحنا إنسان دمر كصوماليادو حدقنا والله ميد ولا ومسوق وحويان corruption number 1 سجنوية وهذا تدو حسين إنسان دمر كصومالياد بشجية تدك مساكين تا أو عاويو ولا الكنا لهذا عبد الملك شيخ موسى عندون أوكري كو عاوية يدتك تشلعسن أنا يقول هذا يسوى بندقينا تاسع إفيا آخر بعض هرمر كويسان لكن سوى حتى عاوسان مامول قبلته تشوبلان قل مودو بنادر لا وحاها أما حكومة دينية سكرتين كو عاوية ودولة نمد ولا على المقدسة ما أنت هدينوها يكتصوا مع هرمر بيكين ساي دولة نمد على قرب استاجو مامول قبل نيتنا هي سكت ديلنا صومالية أنا قرب ولا على دين شيئا واحد صوص سعودة فرش خير قبابا صوص سعودة ما أنت رنتي صومالية وين دقاقدي وقال في عم به الشيء هلا قرب قلو maamul goboleedaduna way ku khasban yihiin inay la shaqeeyaan kuwa waqooyi joogaana way ku khasban yihiin deked berbero oo la qaadanayo imaaraadna taana ku bishaaraysta xukuumaddu go'aan bay ka soo saartay wax baarlamaanka maray muu ahayn dhulkayga Soomaaliyeed dekeda berberaan la qaadan karin taboosaasan la qaadan karin percentage amxaara nagu yeelan kartaan jirin marka walaalayaal Soomaaliyeed niyad jabina dawladda taageera bukaan socodka isagana bartiisa ku baqtiya kuwa xun ay nagu dhex jiray cadawga ka xun walaalayaal qof Soomaaliya oo hadduu walaal qofkaas Soomaali xalaal yahay horumarka iyo dawladnimadu taageer laha dawladnimada ma dhamaanteen baa wasiir wada noqonayna iyo madaxweynayaal qofkii Ilaahay u qoray baa kursigu waahal qofkii Ilaahay u qoray baa ku fadhiisanaya oo fuulaya maantana farmaajo Ilaahay u qoray iyo xukuumaddiisa dadkana xukuumay qabsanay doorashay galeen oo doorashay ku yimaadeen marka walaalayaal dhamaantood qabyaaladana walaalayaal aynu iska dhaafno war qabyaaladaysto waanu ka daalnay 30 sanadood qabyaalad iyo reer hebel isaaq daarood war waxa waanu ka daalnay Soomaali waa isku mid waa isku dad tuugtu waxa weeyaan dhiig cabada Soomaaliya dhiigeedu miirtay weeyaan dhamaantood walaalayaal Ilaahay anaga soo qabto waa Tigray ninka la yiraahdo xidig ma aha Soomaali wuxuu dilay xubno kamida ONLF oo Soomaaliya maantana walaale waa kuwa saayno qasaya marka
dhammaanteen waxbaynu bedeli karaynaa kuwa gudaha joogay kuwa dibadda jooga kuweena dibadda jooga dhaqaalahaynu ka joojinno oo taageeradaynu ka joojinno oo aynu xukuumaddeena garab istaagno walaalayaal dhammaantiinba waa mahadsantihiin bulshada soomaaliyeed aad iyo aad baan idin jecelahay aynu iskarabsanno istaageerno walaalayaal soomaaliya oo wax noqoto oo horumar gaadha ayaynu walaalayaal horumar ayaa taasaa dani inoogu wada jirtaa wallaahi ummadahan aanu ku dhex noolahay ee qurbaha ayaanu sharaf kula dhex noolaanaynaa haddii xukuumaddeeda iyo dalkeegu horumar sameeyo oo uu dhaqaaqo laakiinse haddii dalkeega walaal dibdhac ka jiro ummadahan aanu ku dhex noolnahayna dullinnimaynu kula noolaanaynaa war walaalayaal soomaaliyey qarnigii 21 baynu maraynaa 2017 miyaanay nasiib darro ahayn inaynu maanta isu tilmaanno muhiimadda ay midnimadu leedahay oo odayaal 90 jiraa iyo 80 jiraa kuwaas Leebangaal iyo Siilaanyo hogaaminayaan ay walaalayaal midnimadii la dagaalamayaan oo midnimadii inoo diidan yihiin miyaanay ma nasiib darro ka xun baa jirta adduunyada walaalayaal bal imis dalkan aad ku nooshiin imisa tusaale ahaan imika dalkan adduunyada la yiraahdo Mareykanka ee super power ka sheegta ee the first power ka koobaad ee dunida sheegta magaciisu muxuu ka bilaabmaa way imise states u tagay way 53 states sadana khaldanayn magacoodu wuxuu ka bilaabmaa USA oo United of America wuxuu ka bilaabmayaa jawaab midnimo horumarka midnimadaas ku gaadhan China waa populationka adduunka ugu faraha badan leh horumarka waxay ku gaadheen dadka faraha badan leh walaalayaal inaguna Soomaaliya waa konton isteed walaal waa maasantahay inaguna walaal Soomaaliya ummad yara ayaa waxa la doonayaa in la kala qoqobo war ninkan kala qoqobaya inaga maskax badna dhalinyaro war kaca oo diida oo horumarka qaato oo dawladnimada taageera muxuu inaga doonayaa walaal balse ma isweydiisan Soomaaliya Ethiopia maxay doonaysaa bal Ethiopia maxay naga rabtaa simply waxay doonaysaa dhul ballaarsi inaguna dhulkoodii baynu la kala go'go'aynaayo masaynu leenahay burcaya Hargeysa reer baalaho intaasaanu la go'aynaa meesha leeyahay Boosaaso reer baalaho intaasaanu la go'aynaa Muqdisho reer war waxaas macquul ma aha aqlina ma aha aqliga saliimka walaalayaal uu diidaya Ethiopia Allah rahmaanka qalbiga ku barakay waa ina Soomaaliyeed Shaafiyo Usmaan shukran walaal way 8 qowmiyadood rag horta walaalayaal ragiiba waxaan Soomaali halka waxa dhigay dumarku waa dumar waa nisaa ilaahay noo barakeeyo wanaagana way ka qayb qaataan in kasto ay maamul goboleedadana ay lacag ku abuuraan ay lacag ku taageeraan dumarkiiba garanaya Ethiopia waa 8 milyan oo kala diimaa waliba dawlad bay samaysteen inaguna duulaan bay nagu soo yid inagoo walaalayaal 12 milyan baa lagu qiyaas jiray imikana dibadda soo wada qaxnay bal walaal miyaanu aqligiisu waa sidee makaasada wax weydiinaysan miyaanu professor nimadiisu maxay taraysan Axmed Ismaaciil Samatar imika wuxuu aaminsan yahay oo inagu yiraahdaa wuxuu taageeray kala go'ab aqoontiisu maxay taraysaa walaalayaal aqoontoodu wallahi runtii aad iyo aad baan ugu farxay maalin dhaxdaas oo kuwan maamulkan Soomaaliland ay yiraahdeen waxaan u jarnay xiriirkan waxaan u jarnay bay yiraahdeen Sacuudiga xiriirkii ay Sacuudiga u jareen bal xisaabta khaldan ay isu geysteen iyo miscalculationka nimanka aqoon-yahanada sheeganaya horta walaalayaal qofka marka maskaxdiisa lagu shaqaysanayo ee aanu maskaxda xor ka ahayn dullinnimo ka xuni ma jirto ninka wasiirka arrimaha dibadda ugu magacaaban maamulka Soomaaliland PhD busta saa cali shirani kala yiraahdo maalintu lahaa gadar baan xiriirka u jaraya wajigiisa waad ka dareemaysaa waxa uu soo dhiibay oo hadalka ku ridhe inaan keere la yiraahdo Basha Morgan meel uu inooga yimi iyo meel uu waayaarnimo ku soo bartay iyo meel uu aqoon ku soo bartay rag iyo rabbi toona aan aqoonay Siilaanyo inta ka guursaday ninkaas wuxuu ku yiri hadalkan dhe isaga aqligiisa wax ka yimi walaal ma yahayn waa dareemis marka maalin dhaxdaas waxay yiraahdeen Sacuudigan xiriirka u jareynaa si waxaan leeyahay gadar baan xiriirka u jareynaa si Sacuudigu noo ictiraafo waxyaabo noocaas muxuu ictiraafaa xoolihii noolaa ee Sacuudigu uu ka dhoofin jiray dekada Berbera bal nasiib darrada walaal ku dhacday baan idin sheegayaa maamulka Soomaaliland odayro dheeg lehdaba waxa lahaa
waxay u wareejiyeen ba etoobiyaba etoobiya wareejiyeen ma nasiib darro ka xun baa jirta waa intuu soomaalinimo ay ka cararayeen iyo isirkoodii iyo soomaalinimadii ayaa waxaa ku dhacday in etoobiya maxraj ay tahdo etoobiya sacuudiga waan u dhisaynaa dee yaa garanayaba soomaali unbuu sacuudigu u aqoonsanya ma soomaali buu sacuudi kala yaqaanaa mise kala jiraa markaa walaalayaal ummadda soomaaliyeed iska xiiqi mayno walaalayaal oo iska qaylin mayno waxaanu arkaynaa waddankeegii oo gacan xun ku socda oo rag aan u tudhayn oo noo naxariisanayn oo soomaalinimo aan lahayn oo han aan lahayn oo damiir aan lahayn oo korrabtasa oo musuq maasaqa oo wax boobaya ay walaalayaal maanta horboodayaan waa nasiib darro dhallinyaradina ay wada qaxoontiyiin sidaas oo kale oo ay difaacayaan oo kuwii guduhu dulman yihiin oo lacagtii maanta islaanta yaree suuqa fadhida laga soo qaaday badhna dubay baa ayaa lagu dalxiisaya badhna waa tabruca iyo meelaha lagu dabaaldegaya ee marba kontonka qof iyo balaayada lagu soo dhaweynayo markaa walaalayaal ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay soomaaliya ha noolaato dowladnimadeena inaynu garab istaagno allah raxmaanka guusha hayna waafajiyo farmaajo iyo xukuumaddiisana waynu ducaynaa walaalayaal dhallinyarada soomaaliyeedna waxaan leeyahay waa rajadiinna iyo mustaqbalkiinu halkaasuu ku jiraaye dowladdaa taageera maalinta dowladdaasu guulaysato mustaqbalkiina wuu guulaystay horumar baad gaadhaysaan halkaasaa mustaqbalkiinu ku jiraa dowladnimadana aan la taageero wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu